بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحاب تقاليقة كوحرنتنا يوتيوب أخوان كرارسي أونلاين أكاديمي. إن شاء الله تعالى وحن قاضينا مادة حسابته فصل كسديدات قارهان إن شابتر كشنات لو يقانو إن الشبر إن قاضون إن شاء الله إن عطسية كيمت إن أصحاب كوحرنتنا الكه أو عطسية بدينو سوقد بسي سان وسوقد بينو أما نوصل شرحناه إن شابتر كاني إن شاء الله وحن قاضون دونا مانتا إن عوان كنا قرنا يسوقينت إيو kala goynta tibxaha al-jabra ayaan qaadan doonaa insha Allah qaybta koowaad ee noo qoran waxay tahay isugeynta tibxaha al-jabra ilaa waxay noo qoran 3 su'aal ayaan ka shaqeyn doonaa kadib qaybta kale waxaan ku qaadan doonaa insha Allah kala goynta tibxaha al-jabra casharka waxaan idin soo gudbinayaa anigoo ah Ustaad Cabdiwahaab Cabdi Maxamed channelka haddii aad ku cusub tahayna waxay noo saartaa subscribe-ka haddaadan ku cusbeen u share garay asxaabtaada kale like iyo comment-iga waxay noo taageerigelinayaan si wadno in casharada aan ku caawinayna ardayda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan markaas waxaan u taaganahay inaan caawino ardayda Soomaaliyeed waxaan gudagalaynaa insha Allah sharaxaada qaybta koowaad ama su'aasha koowaad ee la weydiiyay qaybta koowaad oo ba waxaan haysanaa waxay tahay tibxahani taasoo ah labaxa oo lagu daray 6 plus 4 oo laga jaray 12 marka koowaad su'aashan ayaa fududeynayna waxaan soo qaadanayaa su'aashan qaybta waxaan rabaa su'aasha qaybta P waxaan haystaa labaxa oo lagu daray 6 plus qaybtan kale waxaan haystaa 4 oo laga jaray 12 markaan u fududeeyo qaybtan waxaan sameeynaa inaan ka saar bracketka kadib waxaan leeyahay labaxa oo lagu daray 6 plus 4 oo laga jaray 12 kadib waxaan sameyn doonaa in dhinacan soo wada mariyo xarfaha isku midka ah tirooyinka xarfaha isku midka wata inta waxaan haystaa labaxa inta waxaan haystaa 4 dhinac soo wada mari waxay noqonaysaa labaxa oo lagu daray 4 qaybtan waxaan haystaa +6 qaybtan oo -12 dhinac wada mari +6 iyo -12 ay noqonaysaa qaybta kalena marka intaan aan sameeyo waxay isku darmayaan isku dar oo isku calaamad ah waxaan isku calaamad ahayn kala jar oo plus iyo minus wato kala marka hadda inta waa isku calaamad inta waxa ka bixi doonto 6x inta waxaan haystaa +6 inta waxaan haystaa laga jar 12 marka labadan tir way kala jarmay maadaama ay yihiin laba tir oo kala calaamad ah inta waa +6 inta waa laga jaray 12 marka labadan tir maadaama ay yihiin laba tir oo kala calaamad ah hadii 12 laga jar 6 waxa soo bixi doonto laga jaray 6 marka 12 laga jaray 6 waxaan qaatay lamarku calaamada wataan qaatay lamarku calaamada wato waa minus marka waxay noqotay laga jaray 6 ay noqotay halkaas ayaan ku xaliyay qaybta koowaad ee baa qaybta labaad aan tagaa marka taada waxaan haysanaa 3 ma oo lagu dareeyaa plus 4 ma oo laga jaray 3 ya marka su'aashan hadii hadana aan fuuday qaybtan kale baada bracket ka saar 3 ma plus ya plus inta waxaan haystaa 4 ma laga jaray 3 ya saan u fuuday qaybtani waxay isku xarfaa dhinac soo wada mari inta waxaan haystaa 3 ma plus 4 ma inta waxaan haystaa plus ya laga jaray 3 ya kadib waxaan sameynayaa in qaybtan saan u fuudeeyo inaan isku dar tirooyinka isku xarfaha ah kala jar tirooyinka markaas oo unlike sign-ka marka inta waxay noqonaysaa jawaabteeda waa 4 ma lagu daray 2 ma waxay noqonaysaa 3 ma lagu daray 4 ma waa 7 ma inta waxaan haystaa plus y iyo -3y inta waa hal y oo kaliya inta waxaan haystaa plus 3y marka labadan way kala jarmayaan maadaama ay yihiin laba tiro oo kala calaamad ah calaamadaha haddii idin xasuusiyo haddii isku dhacaan tiro minus ah iyo tiro minus kala ah waxaa la sameynayaa in la isku dar labadan tiro lana soo qaato calaamadooda haddii isku dhacaan laba tiro oo plus waa la isku dari doonaa waxa ka soo baxay meeshaasne waa add oo isku dara qaybtan kalena waa add oo isku dara haddii laba tiro oo kala calaamada isku dhacaan macnaheedu waa subtract oo in la kala jaraa ama ha soo hormar minuska ama ha soo hormar pluska ha noqoto plus or minus ama minus ama plus oo in la kala jaraa labada tiro marka hadiiba labada tiro ay noqdaan laba tiro oo kala calaamada
waa in la kala jaraa haddii yihiin laba tiro isku calaamad waa in la isku daraa hadda marka meeshan waxaan haystaa laba tiro kala calaamada qaybtan waa plus intana waa minus labaan tiro aan kala jarayaa waxaan haystaa ya laga jaray 3 ya inta waa plus marka haddii 3 ya laga jaray hal ya waxa soo har doonto 2 ya marka meeshan waxay noqotay minus 2 ya sababta u qaatay minus waxay tahay lambarku ee calaamada wato waa minus marka waxaan qaadanayaa minus 2 ya ayay noqotay marka halkaas ayaan ku xaliyay su'aasha qaybta ta waxaan xalinayaa qaybta markaasi u dambeysay ja qaybta ja waxaan haystaa xarafka qaybta ja soo qaado 3 xa laba jibaaran oo lagu daray xa plus 8 plus inta waxaan haystaa 7 laga jaray 8 xa laba jibaaran plus 2 xa bracket soo xir marka saan u fuuday su'aashan waxaan sameynayaa inaan bracket ka saaro parenthesis-ka 3 xa laba jibaaran oo lagu daray xa plus 8 plus 7 laga jaray 8 xa laba jibaaran plus 2 xa kadib xarfaha isku midka ah dhinac soo wada mari qaybtan waxaan haystaa ay masana ay tahay 3 xa laba jibaaran iyo 8 xa laba jibaaran dhinac soo wada marka 3 xa laba jibaaran laga jaray 8 xa laba jibaaran qaybta markaan dhameeyo tirooyinka la soo qaado oo xarafka ah tirooyinka maxaa kale ku xigaadane waxaan kale soo qaadanayaa xa inta waxaan haystaa 2 xa dhinac soo wada mari plus xa inta waxay noqonaysaa plus 2 xa kadib waxaan soo qaadanayaa xarfaha u dambeeya oo ah inta waxaan haystaa plus 8 iyo plus 7 waxay noqotay plus 8 plus 7 labaan tiro waa in la kala jaraa sababtoo ah waa laba tiro kala calaamad ah inta waxa u qarsan plus kan wuxuu wataa minus 8 laga jaray 3 waxa soo hartay 5 lamarku calaamada wato waa minus waxay noqotay laga jaray 5 xa laba jibaaran labadaan tiro isku dar sababtoo waa isku calaamad waxay noqotay plus 3 xa labaan tiro isku dar sababtoo waa isku calaamad inta waxay noqonaysaa plus 15 xarafka jaana qaabkaas ayaan ku xalinay oo jawaabteeda waxaan soo helnay 5 xa laba jibaaran plus 3 xa plus 15 waxaan filaynaa fahanteen ciwaanka qaybta koowaad qaybta labaad waxaan qaadanaynaa kala goynta tibxaha aljabra ayaan qaadanaynaa casharka qaybtiisa labaad tusaale labaad aan qoran waxaan haysanaa 4 xa laga jaray 4 xa lagu daray ya laga jaray 8 oo laga jaray 2 xa laga jaray 4 ya lagu daray 6 qaybtan kalena waxaan haystaa 4 xa laba jibaaran oo laga jaray 3 xa lagu daray 6 minus ama laga jaray 2 xa laga jaray 2 xa laba jibaaran plus 5 xa laga jaray 8 marka qaybta koowaad ayaan soo qaadanay su'aasha xarafka ba waa tan meesha noo saaran step koowaad ama qodob koowaad oo marayna waxay tahay inaan ka saarno bracketka qaybtan bracket ka saar inta waxay noqonaysaa 4 xa lagu daray ya laga jaray 8 calaamadan marka inta marayo waxaan sameeynaa soo qaata minuska ama inaan ku furfuro minuska halkan waa minus haduu ku dhac pluska inta waxaan ka soo baxaya minus 2 xa sidoo kale inta waxaan haystaa minus haduu ku dhac minusna waxaan ka soo baxi doonta plus 4 ya halkan waxaan haystaa minus haduu ku dhac pluskan waxaan ka soo bixi doonta minus 6 kadib waxaan sameeynaa inaan dhinac soo wada mariyo xarfaha isku midka inta waxaan haystaa 4 xa qaybtan waxaan haystaa laga jaray 2 xa soo qaad calaamadan waxaan haystaa plus ya inta waxaan haystaa plus 4 ya qaybtan waxaan haystaa sidoo kale minus 8 intana waa minus 6 marka dhinac soo wada marsiyo xarfaha isku midka isku dar ama kala jar wixii kala jarmaan iyo kala jar wixii darsamaan isku dar sidoo kale inta waxaan haystaa 4 xa oo plus wadata 4 labadan minus ay wadataa marka waa la kala jari doonaa maadaama ay yihiin laba tiro kala calaamada inta waxay noqonaysaa 2 xa ama 2 xa sababta u qaatay plus waa lambarku waxa u qarsan plus marka waxaan qaatay plus 2 xa qaybtan waxaan haystaa plus intana waa plus waa la isku dari doonaa waxay noqonaysaa plus 5 ya qaybtan waxaan haystaa minus 8 ama minus 8 intana waa minus sidoo kale 6 laga jaray 8 iyo laga jaray 6 way isku darsami doonaan maadaama ay yihiin laba tiro isku calaamadoodana soo qaado waxay noqotay laga jaray 14 marka halkaas ayaan ku xaliyay su'aasha qaybta koowaad ama xarafka ba waxaa inoo soo baxay jawaabta saxda ah waa 2 xa plus 5 ya laga jaray 15 waxaan u gudbayaa qaybta kale ee ta qaybta ta waxaan haysanaa misalna la siiyay 4 xa laba jibaaran oo laga jaray 3 xa plus 6 oo laga jaray minus 2 xa laba jibaaran oo lagu daray 5 xa laga jaray 8 su'aashan soo qaada bracketkan ka saar saan u fuudeeyo
inta waxay noqonaysaa 4x laba jibaaran oo laga jaray 3x oo lagu daray 6 marka inta aan marayo kale maaniska inta ku furfuraya marka maanis doo maanis ku dhaca waxa ka soo bixi doonta plus 2x laba jibaaran maaniskan wuxuu ku dhacayaa pluskan waxa ka soo baxayso minus 5x maaniskan sidoo kale wuxuu ku dhici doonaa maaniskan waxay noqonaysaa plus 8 marka hadda waxaan dhinac soo marsan doonaa xarfaha isku midka ah inta waxa ka soo bixi doonto 4x laba jibaaran inta waxa ka soo bixi doonto sidoo kale plus 2x laba jibaaran qaybtan waxaan haystaa laga jaray 3x qaybtan waxaan haystaa laga jaray 5x si la mid ah qaybtan waxaan haystaa plus 6 inta waxaan haystaa plus 8 labadan tiro isku darso maadaama yihiin laba tiro isku calaamada waxa ka soo bixi doonto 6x laba jibaaran inta waa laba tiro isku calaamada isku dar calaamadoodana soo qaado laga jaray 8x ay noqonaysaa inta waa laba tiro isku calaamad waxa ka bixi doonto plus 14 marka inta jawaabta saxda waxaan soo helay 6x laba jibaaran laga jaray 8x sidoo kale lagu daray 14 halkaas ay noqotay jawaabta saxda qaybta ta marka waxa inoo qoran tusaalaha labaad waa xarafka ba iyo xarafka ta kala goynta tibxaha aljabra ina fahanteen waan filayaa qaybtaasi waxay noo dhiman hal tusaale oo kaliya tusaalahan san dhameystirina insha Allah kadibna halkaas waxa ku eg kala goynta iyo isugeynta tibxaha aljabra ayaa halkaas ku dhamaanay waa page-ka 56 page-ka 7 ayaa mareynaa tusaalahan waxaan la weydiiyay tusaalaha saddexaad waxaan la weydiiyay raadi wareega shaxanka soo socda su'aasha waxay tahay raadi wareega shaxanka soo socda wareega shaxanka soo socda waxaan la siiyay wareegan rectangular-ka qaybtan kor waxaan haysanaa 4x oo lagu daray 2 qaybtan waxaan haysanaa x laba jibaaran marka su'aashan saan u fuudeyno maadaama rectangular-kan uu yahay square misana uu wareegsan yahay su'aashan ayaa waxaan qoran doonaa laba mar si markaan u soo saarno wareega shaxankan inta qiimeyntu leeyahay marka haddii aan furfurista aan bilaawno inta waxaan leeyahay 4x plus 2 oo lagu daray x laba jibaaran maadaama rectangular-kan uu yahay square waxaan qoranayaa su'aashan laba mar plus aan leedahay 4x plus 2x plus x laba jibaaran kadib xarfaha isku midka dhinac soo wada mari inta waxaa haystaa 4x intana waa 2 intana waa x laba jibaaran marka xaada square-kan soo hormari inta waxaan leeyahay x laba jibaaran oo lagu daray x laba jibaaran inta waxaan haystaa plus 4x intana waa plus 4x sidoo kale inta waxaan haystaa plus 2 qaybtan kalena waa plus 2 equal x haddii lagu daray x waxaa ka soo bixi doonta 2x laba jibaaran 4 lagu daray 4 plus 8x 2 ku dar plus 4 marka jawaabta saxda ah su'aasha saddexaadna waxay noqotay 2x laba jibaaran lagu daray 8x plus 4 ina fahanteen waan filayaa casharkii maanta ka hadlayay isugeynta iyo kala goynta tibxaha aljabra halkaas ayaan ku soo koobaya casharka waxa halkaan ku xiga waa wax qabad masalayli wax qabadka koobaad iyo wax qabadka labaadna ka shaqeey ilayli ku xiga waa page 58 iyo page 59 insha Allah casharka qaybtiisa waxaan ku qaadan doonaa isugeynta iyo kala goynta jabyada tibxaha aljabra assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh